daawade ku soo dhawow channelkeena Sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe saar channelkeena gambaleel kala furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلبنا صاحب بيال ملك استوديو دنيا كجوكتان كسر وهذا برنامج كيني قبنيالك هاي جوز كعيارها قلبنا وأنا كسر هذا دورنا مانتا شيكوين ووين أو كسبسن عيارها أو يغيب كيهين عيارتوغا كيف دبرونيا إلا يولبه warkale oo waaweyn oo qubaniyalkii isboortiga ku saabsanaa ee faniga ahaa ayaan ku soo qaadan doonaa galabta ciyaaraha warada saaxiib channel ku cusubtaan oo subscribe aad weesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha bal aanu soo qaadano qodobkeena ugu horeeya maanta iyo ciyaaraha dadku qaarkii waxay la yaabayiin war habeenkii dibruun sidoo ciyaar maxay ahayd Kevin Real Madrid waa ku raaxaystay waa ku baashaalay cidna ma la isku haya ninkan booskiisa khadka dhexe ma nin ugu fiican ma jiro ma ninkan tilaabaynaya garoonka ninkan raaxaysanaya ninkan dhiibaya ninkan dheelaya ninkan caawinaya ninkan dhalinaya ee garoonka laba tilaab ka dhigaya Dibruun waa magic oo saaxir weeyaan dadku qaar markuu waxay isleeyihiin dadku qaar waxay isleeyihiin war Kevin Dibruun habeenkii muxuu saas ugu kacay waxaadan ogeyn Kevin Dibruun hal nin hadduu arko waa waalana hadda ka horna wuu arkay wuxuu ku dhigan waa looga haduuba arkay Courtois Dibruun waa ku waalaya Real Madrid waxa laga yaabaa habeenkaas inay gurigeeda ku badin lahayd Champions League laakiin waxay u ciyaarayeen Courtois idinka Courtois kan sida u dulqaata marka maxaa yeelay Dibruun ma arki kara Courtois sababtoo waxa jirta sheeko dheer oo labadan nin dhex martay haddaba waxa la leeyahay waxa jira cadaabad dheer oo u dhaxaysa labada nin Dibruun habeenkaas wuxuu u ciyaar si inabanu caadi ahayn maxaa yeelay wuxuu haduuba arko cunuga sanka dheer dhirka badan ee Courtois haduuba Dibruun arko Dibruun waraabo ku kacaba waraabo baa ku kac sida Ramos uu Rosa u daldasho u jecel yahay baana ninka kan waraabo waxa ugu kacaya ninka ka ee lagu magacaabo Courtois sababtoo hadda ka horba gabari uu Dibruun shukaansan jiray ba Courtois ku geegeeyo Dibruun waa forfeit baa laga qaaday macnuhu gabadhii ninkan uu jaceelka u qabtay ba markay aragtay wiilka dheer ee sanka dheer le Courtois way kartooday macnaha oo Courtois ba ku dhacay kaliibsigii macnaha jaceelka bay u wareegtay waxay ka soo tagtay Dibruun waxayna kaliibsigu jaceelka ugu wareegtay ciyaartooyga kooxda kubadda cagta Madrid ee Courtois bariga waxa la sheegay labadan birjimka in qayaano isku sameeyeen marka saaxiibadii hore Dibruun gabadha lagu magacaabo Corlina ayaa waxay cadeysay mar dambe in ay qayaantay Dibruun ayna u qayaantay sababta saaxiibkiis dartid ee Courtois waxay leedahay waan ka xumahay bay leedahay Dibruun inta shukaansanayeen 24 beertan dhacday waxay cadeysay gabadha in Dibruun ay qiyaantay sababtoo xilliga Dibruun xiriirka ay lahayd waxay sheegtay yaani xiriirna la lahayd ciyaartooyga lagu magacaabo Thibaut Courtois wuu dhihi waayay waryahay war saaxiibkay baa kugu cimaamtay yaani macna xaajadiisi aad tahay saaxiibadiisi aad tahay cimaamadaas ninkaas ku tuurtay anaga ugu tuurin inuu habayad baa leeyahay isaguna waxa weeyaan kabti Dibruun buu gashtay marka waxay gabadhu cadeysay in ay isagu qayaantay si ma taqaana u kartoodo marka waxay leedahay anigu Dibruun baan xiriir lahayn laakiin waan kartooway bay markii dambe tiri oo meesh waxa ka bilowday dagaal cad oo u dhaxeeya Dibruun iyo Courtois marna xataa hadii xulka Belgium la joogo labadu islama hadlaan mar walba oo u Dibruun indhihiisu ay qabtaan Courtois Dibruun waa uu kacaa oo nin la celi kara ma xasuusta hadda koor ciyaar u dhaxaysay Premier League Chelsea iyo Man City oo waliba sanadkii City horyaalku ay qaadis ma aragtay Dibruun wuxuu ka dhariyay Courtois darbad aanu xataa Courtois iska dhaafay Courtois yaalo aan waxba ka qaban karin maxaa yeelay ceel iyo colaad buu ku gamay darbada taa markaas baa ku wada jooga yiraahdeen war yahay Courtois maxaa shoot ku celi weysay war wuxuu yiri shoot Burnoni caadi maahan sheega meeshan kaysan buu leeyahay ninkan shoot Burnoni maahan buu leeyahay ninkan inuu dilo rababa macnuhu wanninkan uu xabadiisii buu leeyahay marka waxa weeyaan ninka la yiraahdo Kevin Dibruun waxa weeyaan ninka la yiraahdo Dibruun waxa weeyaan ninka kan ciil buu u qabaa haduuba arko wuu ka dhaliyaa haduuba arko wuu waasha hadda ka hor darbad saaruuq ayuu ku gamay ninka ka oo Dibruun ki yaaba Courtois arkan xasnin badnaa buu yiri habeen dhaweedna inta lagu tagay Bernabeu lagu soo garaacay macnuhu argusle ka taylaa Dibruun marka Dibruun sababta ka dambeysay sirta ka dambeysay Kevin inuu kaco macnuhu Man City ciyaaraha Champions League ciyaartooydu way ku daadsan tahay mararka qaar inkastoo xataa sanadkii hore xataa Dibruun markay Man City hereys kulankii Tottenham uu wacdaray haddase Kevin ma arki kara Courtois colaad baa labadu ka dhaxaysa labaduba isma jecel baa leeyahay inkastoo ciyaartu kadib la leeyahay saxaabad saareen balse wali xiriirkii baa jira ee colaadeed bal markaanu aynu aadno ninka la yiraahdo Mr. Ramajoojiye waxaynu ognahay inuu ahaa mid faqiira guryo cariiri degnaa walaalihii la seexan jiray xataa mar bay hooyadii faqri darteed uurkiisa daadin rabtay
markasta Ronaldo wuxuu yiraahdaa hooyo waa aniga ku cimaamaday waa aniga kor ku qaaday waa aniga kor ku qaaday oo lagu leeyahay hooyadii Ronaldo hooyadiis miya waa aniga maanta marka lagu leeyahay dollars Ronaldo hooyadii baa lagu leeyahay maanta adigu waxaad ugu talagashay hooyo hadda ka hor inaad uurkayga daadiso maxay la cidda Ronaldo shiid baa dilay aabiisna wuxuu ahaa mid alkoholista ahaa yacni macnuhu alkoholada isticmaali jiray khamri cab waana sababta Ronaldo inuu u jeclayn khamriga iyo waxyaabaha ka wuxuu dareemayaa aabii midda inuu dhintay marka Ronaldo faqri buu ku soo barbaaray xataa maalid wuxuu cadeeyay taqaana wuxuu leeyahay marka aan gaaro da'da 30 jirka waxaan fili u leeyahay inaan ka noqdo malaayilgaad inaan ka noqdo magaaladeydii aan ku dhashay ee Portugal ee xebeedka wuxuu leeyahay Ronaldo ma filay inaan maanta noqon doono ninkan taajirka ah diyaaradaha gawaarida faraha badan leh inaan noqon doono marna ma filayn buu leeyahay ninkan maanta ay sababtoo ah markaan 30 jir gaaro waxaan isla buu leeyahay waxaad noqon doontaa mid ka kalumaysta malay dabatan noqda ee shabaqiisu qaad subaxii ama kaalintiisa ee ka malaayeysta yacni xeebaha حتى رونالدو مر ويلكيسي وضي او جايه غورغي او وقتي يرا او كسو برباري markaas wiilkiis wuxuu ku yiri aabow ma halkan baad ku soo barbaartay wuxuu geeyay meel isaga iyo walaashi cidiis isdhax siixan jireen wiilkiisa baa yaabay Ronaldo jiyaar wuxuu yiri aabow ma halkan baad degnaan jirtay marka Ronaldo waa nin soo dhadhameeyay nolosha adag maanta si waxa lagu leeyahay Cristiano Ronaldo haasu waxa uu yahay nin taajir ah diyaaradaha iyo gawaariduba leh balse waxa ka yaabinaya i weydii imisa ayuu bil walba xaaskiisa magaalo joog ahaan u siiyaa magaalo joog ma taqaan adiga magaalo joog annaga hadda waxaan u naqaan adiga waxa weeyaan magaalo joog waxoogaa yaro bridge joog iska gashatid bishaan magaalo iskaga baashaas macnaa saas waa macnaa magaalo joog hadda i weydii Ronaldo imisa uu xaaskiisa magaalo joog u siiyaa bishii ma taqaana waa $100,000 magaalo joog la baro macnaa Jorginho wuxuu magaalo joog ahaan u siiyaa leeyahay magaalo iskaga warwareego iskaga cadcatareyso shoobi ka dhigo macnaa magaalo joog waa macnaa shoobigeeda bishii magaalo joogeeda wuxuu siyaaba leeyahay $100,000 wargeyska Corriere dello Sport oo wax ka qora ciyaaraha Talyaaniga iyo gaar ahaan kuwa Yurub ee ka soo baxa magaalada Rome Talyaaniga ayaan ku soo warramay in ciyaartoygu u dhashay dalka Portugiiska ee u dheelay Juventus Ronaldo uu lacag dhan $100,000 magaalo joog ahaan bil walba uu siiyo gabadha ay wada joogaan ee Jorginho Rodriguez $100,000 kabweyn waa kabtaas wargeyska ayaa sidoo kale ku soo warramay in Ronaldo 60 jir ah uu xaaskiisa Jorginho Rodriguez oo idin 26 jir ah uu lacagtaas u siiyo gun ahaan si ay ugu noolaato nolol heersara Corriere oo ku soo waramayay in Ronaldo uu sanadkiiba mushaar ahaan u qaato lacag dhan $28 milyan sanadkii $28 milyan soo gasho marka $100,000 buluukay tagtiisa ka tahay macna wax yar shub maahan شوف هذا اللي قلتها مويانه الله بقولكم دنا ميوالي dadku بقولكم حتى بقول iska dhaafe $100 ayaaba ka buweyna lacag waa lacag moogtahay asaga $100,000 ayuu leeyahay magaalo joog ka dhiga bishiya ilaa sababta wuxuu qaataa $28 milyan buu sanadkii qaataa Jorginho oo dhalatay Spain dhalashana ka soo jeeda Argentina ayaa gabar 2 sano jir u haysa Cristiano Ronaldo taas oo lagu magacaabo Elena Martina xitaa waxay u korisaa ilmo isagu dhalay oo 3 caruur ah waxay u korisay 3 caruur oo kale oo uu dhalay waxaan wargeysku sheegay inta badan gabadhaas inay ku sugan tahay gurigiisa halkaas ay ku koriso kuna xanaanayso caruurta Ronaldo iyo xaaskiisa ayaa inta badan la arkaa iyagoo ku nolol heersar ah oo waxa dalxiis u tagaan meelaha ugu quruxda badan caalamka iyagoona qaata diyaarad qaas ah dhawaan ayay markii Rodriguez ay Cristiano Ronaldo siisay hadiyad baabuur qaali ah kaas oo la iibiyo lacag dhan $120,000 Ronaldo ayaana xilligaas u dabaaldegay hadda sanad guuridiisii 35aad ee maalin dhaweyd waxay u keentay ma taqaana gaari $120,000 jooga ilaa asaga bil kasta wuxuu siyaa ma taqaana $100,000 oo magaalo ku jooga war ma hal sano hal bil may lacagteedii iyo wax kale isku dari kartaa waxay tiri xaajigeeyow gaarigan ku cimaamado waxay tiri odogaan leeyahay dilaa waxay leedahay anigu Ronaldo baa leeyahay dilaya war xataa kii la dhalatay Messi waxay ku leedahay muxuu yaqaan Messi ku leedahay Ronaldo iyaga baa ka fiicane adduunka walaal ma jiro marba hadii nimo uu yimaado meesha nimo haduu yimaado ilaa mugta Jorginho Rodriguez Argentina way ka soo jeedaa Messi walaalkeed dhalashaan bay wadaagaan weydii markii yaa fiican waxay ku leedahay Messi gaa waxay yaqaan maraga tag
odayga karoon bay ku leedahay gabartina xaajiya ku dhacay walaal muxuu tarahay markay xaajiyo meesha yimaado marka maalmood uu cimaamadayo gaari $120,000 jooga ayaa ugu cimaamaday Rodriguez oo taageerayaal aad ugu badan gaaraya ku leh 17 milyan ku leh barta Instagram ayaa sidoo kale waxay dhaqaale ka samaysaa shirkadda ay xayiiska u samayso xaaska Ronaldo ayuu wargeysku sheegay inay ku soo barbaartay tuulo fog oo ku taala waqooyiga dalka Spain halkaas oo ay kula nooleed aabaheed Jorge isaguna waxa ciyaartu u dhashay dalka Argentina iyo hooyadeed Spanish Rodriguez markay yareed waxa ay jecleed inay barato ciyaaraha qoobka ciyaarka balse waalidkeeda xilligaas ma aanay awoodin inay diraan ama ay u diraan iskuulka lagu barto ciyaarahaas waana mar dambe ay iska noqotay gabar dharka xayisiisa waagi hore waxay ku nooleed nolol ka duwan tan hadda ay ku nooshahay oo waxay kabalyeeri ka ahayd maqaayid markay da'deedu soo gaartay 19 sano waxay u soo wareegtay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska halkaas oo ay ku ahayd jaariyad saacadiiba ku shaqeysa $10 xaaska Ronaldo xataa jaariyad way soo ahayd asagu intaas ku soo barbaaray nolosha xun bay ku soo barbaaray asagu xataa uurkiisa hooyadiis ka soo xaaqi weyday iska soo xaaqi rabtay oo ay dhahday inta wax uu keenaa hadaan dhalka maxaa u hayaa dhakhtarkii baa la taliyay iyadu xataa jaariyad $10 ku shaqeysay yahayd saacadiiba ha yeeshee markii dambe waxay dib ugu laabatay Spain waxaana Cristiano isku barteen dukaanka caanka ah ee Cruchester dukaankii ay gadaysay isku barteen markaas Maalin kasta ku xadaa odagu halkaas buuna ka bilaabay xiriirkoodiyo marka Ronaldo gabadhu qaba lagu leeyahay bishii magaalo joog leh $100,000 buu siiyaa